dhibane hooyo warsan baashi maxamed oo haysata 5 caruur ee dhashay ayaa xaaladeeda caafimaad aad looga deerinayaa iyadoona ku xanuunsanayso degmada Buurtinle ee gobolka Nugaal. hooyadan ayaa dhibaatada haysata uga timid dhiig oo ka dhamaanaya waxaana maalin walba lagu shubaa 1,000 cc oo dhiiga 6 barina waxa ku baxo dhiig kor u dhaafaya 6,000 cc sida uu noo xaqiijiyay Aabe Baashi Maxamed Barre oo ka hadlay xaalada gabadhiisa wuxuuna noo sheegay meelo kala duwan la geeyay xanuunka gabadhiisa dalkana aan waxba looga qaban karin. ku mahadnaqayna odayaashiina iyo culimada iyo SBC gabadhan warsan Baashi Maxamed baa la yiraahdaa ara dhalay waa gabar xaasa 6 ilmood bay leedahay. xanuunkan ilaahay qadartiis ilaahay hadda waxay qabtaa muddo sanad iyo 4 bilood ah. anagu markii ugu horeysay xanuunka lagu arkay dhiig la'aan caadi ah la mooday dhiig baa lagu shubay isla markiiba waa la garan waayay markaa ka bacdina waanu qaadnay xamar baanu u dhignay isbitaalada xamar oo dhan baa la mariyay waxba waa laga soo waayay waxaanuna waa sheegi waayeen waa keenay waxaanu u dhignay ardisabaan muddo ku haynay meel kasta laga baaray wax kasta lagu sameeyay waxay noo sheegeen inaan waxba ay xanuuna ka waayeen bay noo sheegeen. intii ka dambeysay waa soo celinay waxay nagu amar gareeyeen qolada ardisababa inaanu Yurub iyo Hindiya iyo meelaha u dhigno si baaritaan kale loogu sameeyo. awoodayadii waa gaari weyday waxaanu keenay Buurtinle intii ka dambeysayna Buurtinle ku haynaa dhiig ku shubideedaas asbuucii awal halkii asbuuc 2,000 baa lagu shubi jiray hadda bilahan dambe 2 jeer in lagu shubay noqotay asbuucii halkii mar lagu shubo 100 siyaada lacag weey intaas qof baa la baaraya la dhiig noqon mayso waxaanu tabar u haynana ma aha. dhinaca kale Soonfale Xabiib Abshi Faarax iyo Sheekh Cabdifataax Cabdullaahi Xuseen Muqdishaawi oo ka hadlay xaaladda warsan ayaa ummadda muslimiinta u sheegay inay ku garab istaagaan aabaha iyo warsan ayna wax u qabtaan sidoo kalena waxay baaq u direen muslimiinta iyo walaalaha Soomaaliyeed in loo istaago caawintan hooyadan dhibaataysan dalkana aan waxba looga qaban karin. Allah caafimaadka baxsheen. SBC waa idinkaga mahadcelinaynaa sida islaamnimada ku jirto ee u garab istaagtaan bulshada Soomaaliyeed meel ay joogtaba. halkani waa Buurtinle waxaan ku sugannahay Daawo Hospital oo ay taalo walaal warsan Baashi Haragweyn oo gabadha aad arkaysaan muuqaalkeeda aad iyo aad gabar wadanka deegaankan ugu dhiban dhiig aad iyo aad u fara badan jirkeedu u beer dareeyo asbuucii 2 ilaa 4 kun oo cc lagu shubo. waxaan rabnaa gabadhaas dadka muxsiniinta ee islaamka ee adduunka dacaladiisa jooga inay Ilaahay ugu dhawaadaan oo khayrka ka qayb qaataan. waxaan waa cibro laynagu wada eegayo. warsan sida xaaladeeda aabaheed inooga warramay walaalayaal waxaa la isku dayay in la geeyo meelo badan si xaaladeeda rasmiga loola socdo. waxaa la geeyay Muqdisho waxaa la geeyay Addis Ababa waxaa guud ahaan magaalooyinkan ay deegaanada Puntland waa la geeyay waqooyiga Soomaaliya waa la geeyo Hargeysa la geeyay. marka waa garan kartaan qofka intaas oo goobood lala tagay oo lala tacaalay oo xaaladiisa laga dayriyay. nacam qof Ilaahay samaystay oo dhiig jirkiisa uu beer dareynayo wax inagu aynu awood u hayna haba yaraatee maaha waa wax Ilaahay kaliya subxaanahu wa ta'aala lala hoos galo iyo dadka islaamka. inaga Ilaahay wuxuu na leeyahay isu naxariista baa layna faray dad islaameynuna markii dib noocaan oo kala ay timaado waxaa la rabaa in dadku isu damqadaan garabka isu dabciyaan. walaalayaal caafimaadkan garantii qof haysta ma jiro haddii waalidka iyo ehelka iyo caruurtaadii walaalaha ay caafimaad qabaan waxa weeyaan dadkan cid lagala ballamay inay xanuunsato iyagoo ay jirato oo dhibta marta ma jirto waa laynagu eegayaa. markaynu isu naxariisanno isu damqanno oo garabka isu dabcino baa Ilaahay barwaaqiyo nolol iyo laafiyo wanaagina gaarsiinaya. waxa weeye warsan xaaladda ay ku jirto maanta xaalad culus weeye in dhiig lagu shubo asbuucii 2-3 jeer laga bedelo intaas cc shurkeeda ay ku socdaan waxay dooratay maaha waxay dalbatay maaha waxay jeclaan lahayd maaha. waa hooyo 6 caruur haysata waxa weeyaan Ilaahay sida maamooyin kale u nool yihiin oo guryaha fiican u degan yihiin oo caruurahooda u korsanayaan iskuulada u geysanayaan dharka fiican ugu bedelanayaan bayaduna istaahisha. marka Ilaahay daacadiis maaha wax la qaadan. dhiigaas ayaa ku socda ujeedaan muddo ku soconaya sanadii 2 bilood ee saa waxaan u santaa gabadha tan walaalayaal waxaan idin ka codsanaynaa in la is caawiyo
ilaahi subxaana watacaala wuxuu leeyahay waman axyaaha fakaannamaa axya annaasa jamiica qofka qof nooleeya isagoo ummadda dhan nooleeyay ayay ka mid tahay marka walaalayaal barnaamijka aan ka qayb qaadanno wallahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiihi inta qofka walaalkii u gargaara ilaah baa u gargaaraya waa ujeedaan isbuuciiba intaasaa lagu shubayaa $100 maazaad intaa qosoo qofaa la baarayaa dhiigooda la baaraya ka bacdiyaa la shubaya waa hawl culus waaye ay muddada ay soo wadeen ka tanbadatay muslimiinta ay usoo bandhigeen marka walaalayaalo waxaa weeye si degdeg ah gabadha ha la soo caawiyo insha allah wajazaakum allahu khayra weligiin baa kasoo qayb qaadan jirteen barnaamijtan oo kale inta gudaha naga daawanaysa iyo bannaanka waxaa si degdega usoo jawaaba lambarka waa lambarkan ilii sheegay oo ka bilaabanaya 06-6 waa lambarkaas waa insha allah idaacadda SBC na aalaaba badanaaba dadka u qarantanayadana wax badan dad badan wax waa u ururinay ilaahay waa soo caawisan ilaahay weydin caawinaya wajazaakum allahu khayra mawlid maxamed kooshin warbaahinta SBC degmada buurtinle.